oo aan inta badan maanta halkan waxaan u soo qabsaday arrintan qayladhaan ilaahay ayuun baanan doonayaa inuu inaga jabiyo qof aadamiya oo kale ama dadka gafee deeqbixiyaal iyo waxaa guraa ma anigu ma raacsani ilaahay baa deeq bixiya gacan weyn un baana wax gaarsiiya ilaahay un baan dadka horta uga bariyaa inuu ka soo jabiyo abaaraha arrintan maanta ka hadlaya waa arrin xasaasiya oo dhacday arrintaas abaaraha ka jira dalka oo dhan waa la wada ogyahay hawsi bataan bari iyo hawdba arrintan maanta ka hadlaya waxa weeye arrin ka dhacday arabsiyo iyo gabiiley kala baydh iyo wajaale dadkii abaaruhu ay hayeen iyo dadkii deegaanadaas ee sharafta badnaa ee qiimaha badnaa ee garashada badnaa waxaa ka dhex jirta arrin xasaasiya oo fara badan dadku inay dib u eegaan arrintii shalay haysatay ayadaha ilaahay maalinba meel bay dee taagan tahay shalay abaartii haysatay maanta ay ku badbaadeen dadkii ku badbaadeen ayaa jawaabtii ilaahay maanta iyagiina taabsiye marka dadkan u soo qaxay inay u naxariistaan inay beeraha iyo hawshan dadkooda ay ka dhigtaan inay laabta gashadaan waxaan ku soo maray nabadgelyo darro jirta xoolihoo ka tallaabila laamidii gudmo la isku haysto dawladda dadka caqliga leh booliiska nimanka xukuumadda degmooyinka ee barasaabada gobolada iyo maamulayaasha degmooyinka ciidanka asluubta militariga iyo bilayskaba waxaan leeyahay dadkiinii abaarta waxa ka daran nabadgelyo darro goob walba waxa la isku haystaa gudmo isku haystaan shacabkii oo abaar ay isku keentay in la kala waardiyeeyo oo la kala ilaaliyo qayladhaantaydana maanta ilaahay bay ku socotaa oo ilaahay baan gacmaha hoos haysanaa oo gacan weynaan hoos haysanaa haddana dadka mas-uuliyadda dadka mas-uulkii dadka ay ka mas-uulka yihiin inay ku kala guntadaan oo maanta kolba goob baa jirto laysku guurguurayaa in dadka la dhex socdo in dadku istaakuleeyo inaan dhulka la kala lahayn in dhulka la wada daaqo abaari markay dhacdana gurmad degdegaa loo baahan yahay waxaan ka hadlayaa oo aan leeyahay dadka deegaanka afartaa degmo ee aan soo taabtay arabsiyo iyo gabiiley kala baydh iyo wajaale dadka deegaanka ee beeralayda iyo dadkii abaaraha ka soo qaxay waxaan baaqaygan leeyahay dad qiimo laba ahaan jirteen dadka ha la soo dhoweeyo gudmahan la isku haysto iyo halkan ha degin iyo halkan ha daaqinta waxa isaga soo oriyay adigana berri buu ku qaban karaa waa kii shalay ku hayay walaalo arrintaa ha laga dulqaato xaq ha laysa siiyo ha la isku gurmado haddii inagu isku gurman weyno oo isku naxariisan weyno ilaahayna inoo naxariisan maayo arrintii shalay dhacday ayaa berri toolana dhici doonta walaalayaal dadka deegaankow iyagu shalay kuwaa ku baxsateen weeye iyagana waxaa laga doonayaa inay balka iyo beerta intuu dhex yaallo iyo xoolaha dee waajibaad iska saaraan oo wixii carruurta cuni lahayd ama dadku cuni lahaa iyaguna inay seefgareeyaan waa muhiim ayaa loo baahan yahay waxaan leeyahay arrintaa dawladdu dadka debadda waxaan iyagana u dirayaa inay dadkooda abaartu haysato usoo naxariistaan oo ay soo taakuleeyaan oo ay ogaadaan dadkan marka la ololeynayo dadka siyaasiyiinta ah waxaan leeyahay wixii aa u ololeyn lahaydeen iyo wixii aa ka ololeyn lahaydeen maanta horta halkuu ku nool yahay waa su-aal u taallaya maanta dadkii siday ku nool yihiin horta ninka doonaya doorashow bal dadkii siduu ku nool yahay horta soo arag batroolka ay somalilan leedahay waa xoolaha xoolihii noolaa markaad hargeysa ka baxdo afarta geesoodba uga baxdo oo wadda ku bilaabmataa waxay ilaa Itoobiya gaadhaysaa meel walba haddana xoolaheennina waa batroolkeenni baa la leeyahay maxaa ilaahay roob ku shubaa meel walba dadka waa la kala xidhay dadka siyaasiyiintana intaasaan kaga baxaya dadka aqlul saaxiibka ah iyo cuqaasha iyo salaadiinta waxaan leeyahay war dadka dhex yimaada hargeysa waxaan ka soo maqnaa 6 habeen 6 habeen tuulooyinka maanta waxaan joogaa Rice Hotel Boorame ayaan joogaa 6 habeen waxaan wareegayay xoolaha dhexdooda oo aan marayay war dibadda u soo baxo ma isxabadana cabaysaan iyo guryahan qabowga fadhidaan iyo talaajadahana fadhidaan ka soo baxa oo dadkiinu wuxuu ku nool yahay hal arko dadkana dawladda ka mas'uulka taliyaha ciidanka bilayska taliyaha ciidanka asluubta injananka militariga
dadka hala dhex qaado gurmadku kolba wuxuu ku jiraa halkay marayaan xooluhu ha loo soo gurmado xoolihii dadkii iyo xoolihii beerareydii oo aan lahayn ood dhibaato ka jirta waa la isku caqiran yahay arrintaa laga soo kaco aad iyo aad